labo eber labo eber 2020. hansare haddii aad aragto qof wax uun adiga ku dheer marnabaha uma seerin inaad sidiisa oo kale noqoto balse allah subxaanahu wa tacaala weydiiso inuu ku gaarsiiyo darajo ka saraysa halka uu joogo waayo taasi ayaa ah hanka sare ee looga baahan yahay qofka muslimka ah teeda kale naftaada ka dhaadhicin inay qof kale u oggolaato inuu ka darajo sareeyo taa beddelkeeda adiga ku ducayso inaad noqoto ruuxa ugu darajada sareeya ugu aqoonta badan ugu caqliga badan waayo naftaada oo aad wax wanaagsan ka dhaadhiciso waxay keenaysaa inaad ku dhiirato sidaad u hanan lahayd waxa wanaagsan balse haddaad ku fikirto inaad tahay ruux dadka u hooseeya oo aan aqoon lahayn oo caqli liita waxay taasi saamayn weyn ku yeelanaysaa hadba waxa aad hanan karto haddii aan tusaale ku soo qaadanno qiso yar oo dhacday hadda ka hor waxaa la yidhi laba nin oo saaxiibo ahaa misna isku aqoon ahaa ayaa shaqo xamaali ah ka wada dalbadeen gigo diyaaradeed kadibna labadii nin ee saaxiibada ahaa waxaa loogu yeedhay bal in laga waraysto aqoonta ay u leeyihiin shaqada ay rabaan inay qabtaan mid welibana mar ayaa lala yeeshay waraysi gaar ah kadibna waxaa lagu yidhi jawaabta naga suga maalmo yar gudahood labadii nin mid ka mid ah waxaa loo soo diray warqad sidan u qoran waan ka xunnahay adiga ma tihid qofkii aan raadinaynay oo shaqadan ka soo bixi kara sidaa awgeed codsigaagii ma aqbali karno midkii kalena waxaa loo soo diray warqad ah sidan hambalyo codsigaagii waa la aqbalay waxaadna tahay ruuxii aan raadinaynay beritoona waad bilaabi kartaa shaqadaada mahadsanid intaa kadib labadii nin ayaa iswaraystay oo midkii codsigiisa la diiday waxa uu saaxiibkii ku yidhi war nin yahow waataan isku aqoon iyo isku xirfad ahayn ee siday ku dhacday in adna lagu qaato anigana la i qaadan waayo arrinku markay intaas maraysay waxay labadii nin go'aan ku qaateen bal inay ku laabtaan xafiiskii si ay u weyddiiyaan midna lagu qaatay midna lagu diiday labadii nin oo saaxiibada ahaa waxay u tageen ninkii waraysiga ka qaadayey waxa ayna weyddiiyeen bal inuu u sharxo waxa keenay midna inay qaataan midna ay diidaan ninkii waraysiga ka qaadayey waxa uu u jawaabay sidan waxaan markii hore baraadinaynay hal shakhsi oo u qalma shaqadan sidaa awgeed markaan waraysiga idinla yeelanay waxaan ogaanay aqoonta aad shaqadan u leedihiin iyo waayo aragnimada aad ka haysataanba inay isku mid tahay balse annagu shahaado iyo aqoon oo keliya dadka kuma kala saarno waxaan se fiirinaa hadba hamiga uu qofku leeyahay sidaa darteed su'aalihii la idin weyddiiyey waxaa ka mid ahaa su'aasha tan waa maxay waxaad jeceshahay inaad noqoto midkiin waxa uu ku jawaabay waxaan rabaa inaad noqdo shaqaalaha ugu wanaagsan ee ka shaqeeya halkan sidaa awgeed ayaan u diidnay inaan shaqaalaysiino qof hamigiisa ugu weyn uu yahay weligii inuu shaqaale ahaado sidoo kale isla su'aashan waxaan weyddiinay midkiin wuxuuna noogu jawaabay sidan waxaan doonayaa inaan noqdo duuliye sidaas darteed waxaan u aragnay ninkan inuu yahay qof han sare leh laga yaabo shaqadeena inuu isbeddel wanaagsan ku soo kordhiyo taasi ayaana keentay in aan aqbalno codsigiisa dhammaad muhiimadda qisadan waxay tahay waa in qofku uu yeesho han sare waayo waxaa la yidhi dad waxaa ugu faqiirsan qofka riyada fakhriga ku ah haddiiba aad wax ku haminaysid ku hami inaad gaarto halka ugu sarraysa ee qof bani aadamah uu gaari karo waayo haddii aad geeriyooto adiga oo aan gaarin halkii aad tiigsanaysay ogow waxaad geeriyootay adigoo dad badan ka sarreeya waxaadna ogaataa haddii aad dadaasho alle tala saarato waxaad noqon kartaa wixii aad doonto adigaana mudnaan doona in wanaagga lagaaga daydo haddaba iska daa inaad cid kale iska yeesho adigoo laga yaabo inaad awood u yeelan karto inaad noqoto hoggaanka sare run ahaantii waa inaad ka fikirtaa si weyn oo cidna ku fakerin weligeed waxay taasi ku dhaxalsiinaysaa inaad gaarto darajada sare oo aad adiga dad badan ugu noqonaysid tusaale ay ku daydaan